السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا وناكسن داوديال halkan waa janalka xogta dhacdooyinka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka dhex taagan wadanka Shiinaha iyo sidoo kale jasiiradda deriska la ee Taiwan. wararkii ugu dambeeyay ayaynu eegi doonaa saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay marka hore janalka subscribe noo saar si share garay muuqaalka gambaleelkana furo si ay mar walba ku soo gaaraan xogaha aynu halkan soo galino. haddii aan eegno saaxiibayaal Agosto labadeedii safar ay Shiinaha ku tilmaameen qar iska tuurnimo iyo sidoo kale iska indhatiris mowqifkooda dhammaan heshiisyada ka dhaxeeya labada dal iyo xataa kuwa caalamkaba ayay gashay afayeenka Koongareeska Mareykanka Nancy Pelosi kadib markii ay booqatay gobolka Shiinaha ee Taiwan. arrintan waxa uu Shiinuhu u arkay mid saameyn weyn ku yeelatay xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka xadgudub cad oo la xiriira qarannimada iyo badqabka dhuleed ee Shiinaha iyo meel ka dhac ku aadan nabadda iyo xasiloonida dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa cambaariyay safarka Nancy Pelosi ee Taiwan isaga oo sheegay in tallaabadaasi ay tahay iska indhatir mowqifka Shiinaha khatarna ku tahay Shiinaha midka ah una muuqato daandaansi siyaasadeed taasi oo keentay inay aad uga xumaadaan guud ahaan shacabka Shiinaha iyo beesha caalamkaba. Wang Yi oo cadeynaya mowqifka Shiinaha ee ku aadan Taiwan ayaa sheegay waxaan uga digaynaa Mareykanka in aanay ku riyoon inay carqaladeeyaan dib u mideynta Shiinaha. Taiwan ay tahay qayb ka mid ah Shiinaha iyo taariikh aan la bedeli karin isla markaana aan la ogolaan doonin koox madax bannaan raadis ah ama faragelin dibadda ah toona. Mareykanka si kasta oo u taageero xogaga gobonimo doonka ah ee Taiwan waa hal bacaad lagu lisay waana taariikh madow oo Mareykanka meel u taala. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay Shiinuhu waxa uu cagta saaray wadadii horumarka nabadda ku wada noolaashiyaha oo hormuudka ka yahay xisbiga Shuuciga. mowqifka xukuumadda Shiinaha ee la xiriira Taiwan waa mid aan isbedelin oo ka tarjumaya rabitaanka 1.4 bilyan oo shacabka Shiinaha ahna sidoo kale si adag in loo ilaaliyo qarannimada iyo badqabka dhuleed ee Shiinaha. uma suuragelayso dal koox ama shakhsi in uu duwo rabitaankaasi soo jireenka ah ee dawladda iyo shacabka Shiinahaba ay uga go'an tahay ilaalinta qarannimada iyo sidoo kale badqabka dhuleed iyada oo Shiinaha uu qaadi doono tallaabo kasta oo lagu ilaalinayo qarannimadaasi iyada oo Mareykanka uu dusha saari doono cawaaqib xumida ka dhalata arrinkaasi. mar uu ka hadlayay heshiis horay u dhaxmaray Shiinaha iyo Mareykanka Yi waxa uu yiri 1979 Mareykanka waxa uu qalinka ku duugay war murtiyad laba geesood ah oo Shiinaha iyo Mareykanku ay ku yeesheen xiriir diblomaasiyadeed waxaana ku jiray Mareykanku waxa uu aqoonsan yahay xukuumadda jamhuuriyadda dadka ee Shiinuhu in ay tahay mid kaliya ee sharciga ah ee ka jirta Shiinaha iyada oo taasi laga duulayo shacabka Mareykanka waxa uu xiriir ganacsi dhaqan iyo qaar kale oo aan rasmi ahayn bal la yeelanaya shacabka Taiwan. Koongareeska maadaama uu ka mid yahay hay'adaha dawladda Mareykankana waxa uu waajib ka saaran yahay ilaalinta siyaasadda ay xukuumadda Mareykanku ku aqoonsatay Shiino mid ah iyo sidoo kale inuu ka fogaado xiriir rasmi ah. wasiirku waxa uu Mareykanka ugu baaqay in ay ilaaliyaan danaha labada dal. Shiinaha dawlad iyo shacab ahaanba ma aqbalayaan tallaabadan ee qaadatay Nancy Pelosi waana in Mareykanku uu joojiyo taageerada uu siiyo kooxda raadinaya gooni u goosadka Taiwan. waa in uu meesha ka saaro in uu hadal dhaho mid ka soo horjeedana uu sameeyo waana in uu dhowraa war murtiyeedkii markaasi shanta ballanqaad oo uu sameeyay Mareykanku oo ay ku jirtay ka fogaanta dagaal cusub oo qabow. waa in Shiinaha iyo Mareykanka oo ah laba quwad ay ku dhaqmaan in si wada jir ah ay u ilaaliyaan danaha labada dal ku dadaalaan in la wada guuleysto iyo sidoo kale nabad ku wada noolaashiyaha lagana fogaado isku dhacyada. ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi waxa Washington xusuusiyay xeerka UN-ka ee arrinkaasi la xiriira. qaramada midoobay waxa ay aqoonsan tahay Shiino mid ah waxa taasi lagu cadeeyay qaraarka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa 2758 ee soo baxay 1971 tan iyo markii la dhisay jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha
1949 ilaa 180 dal oo caalamka ayaa la yeeshay xiriir diblomaasiyadeed iyada oo ku qotoma mabda'a hal dal oo Shiina ahi. dhinaca kale tirada diyaaradaha ciidamada cirka Shiinaha ee galay hawada Taiwan ayaa walaac xoogan ku abuuray shacabka Taiwan oo hadda isweydiinaya haddii Beijing ay ugu dambeyn qorsheynayso weeraro ka dhan ah kadib sanado hanjabaad ahi. ciidamada cirka Shiinaha ayaa kordhiyay tirada duulimaadyada ka gudbaya xariiqda hawada labadan dariis 4 bil ee markaasi la soo dhaafay sida lagu sheegay warbixin ay sii deysay wasaaradda difaaca qaranka Taiwan. 18 diyaaradood oo militariga ah oo Shiinees ah markaasi ayaa ka gudbay hawada Taiwan waxaana markaasi xigay 19 kale sida ay sheegtay wasaaradda. diyaaradihii Sabtidii gudbay ayaa u duulay hab loo naqshadeeyay in ay fuliyaan weeraro. ayada oo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda difaaca Taiwan waxa ay sheegtay in jasiiradan ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo oo ay samayso weerar celis. ayada oo militariga shuuciga ay sare u qaadeen daandaansiga militari iyo sidoo kale diyaar garowgooda maalmihii tagay iyo awoodda ay u leeyihiin in ay weeraraan Taiwan. ciidamada Taiwan waxay isu diyaarinayaan xaalad dagaal iyo sida ay ula tacaali lahaayeen halistan. waxaa sidaasi bayaan ay Isniintii soo saartay ku sheegtay wasaaradda difaaca ee Taiwan. ra'yi ururin ay samaysay Yahoo horaantii bishan ayaa muujisay in 64% shacabka Taiwan ay walaac ka qabaan dagaal qarxa halka 33% ay sheegeen inaysan ka walaacsanayn ama aysan aragti ka dhiiban. China waxa ay sheegtay in Taiwan ay ka tirsan tahay dhulkiisa. Taiwan ayaa sidoo kale iskeed isu maamusha tan iyo 1949 markii xisbigii wadaniga Shiinaha ee uu hogaaminayay Chiang Kai-shek looga adkaaday dagaalkii sokeeye ee ay la galeen Shuuciyiinta uu hogaaminayay Mao Zedong, taasi oo qasabtay in Chiang saldhig ka dhigto Taiwan kagana dhawaaqo dal madax bannaan. ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu wacd ku maray inuu dabayaaqada toddobaadkan midayn doono Shiinaha iyo Taiwan kadib xiisadda markaasi ka dhex taagan haatan oo cirka isku sii shareeraysa. walow ay hogaamiyayaasha Shiinuhu ay caadi u tahay in ay soo saaraan bayaan noocaas oo kale ah ayaa haddana hadalka madaxweyne Xi Jinping waxa uu imaanayaa maalmo kadib dhoolatus ay hawada Taiwan ku sameeyeen militariga Shiinaha. arrintaas oo dowladda Taiwan iyo xulafadeeduba ay ku tilmaameen daandaansi. Xi Jinping si toos ah uma uusan carabaabin balse wuxuu wacd ku maray in uu difaaci doono waxa uu ugu yeeray midnimada Shiinaha, wuxuuna sidoo kale sheegay in ay waajib tahay dhamaystirka hawsha taariikhiga ahi. tan iyo bilowgii bishan ayaa ku dhawaad 150 diyaaradood oo ay ku jiraan kuwa wax duqeeya iyo kuwa wax basaasaba waxa uu Shiinuhu u diray hawada Taiwan. waxyar ka hor markii madaxweyne Xi uu hadalkan ka sheegay magaalada Beijing, ra'iisul wasaaraha Taiwan Su Tsing-jang ayaa Shiinaha ku eedeeyay in ay cududeeda markaasi ku ballaarinayso dalkaas ayna xiisad abuurayso. Shiinaha iyo Taiwan ayaa kala qaybsamay intii uu socday dagaalkii sokeeye ee 1949 balse Beijing ayaa ku adkeysanaysa in jasiiraddu ay dib ka sheegan karto haddii loo baahdana ay xoog ugu adeegsan karto. jasiiradda Taiwan ayaa leh dastuur u gaar ah, hogaamiyayaal si dimuqraadi ah loo doortay iyo ilaa 300,000 oo ciidamo ahi.